in bulshada reer gaalkacyo igala xisaabtanto ballanqaadkaygii 7 qodob maxaa qabsoomay maxaa qabyo ah waxaan maanta u taaganahay qabyo ninka dhamaystira insha Allah taala aan rabo bulshada reer gaalkacyo in aan cadeeyo inaan mar kale u sharxanahay meeyirka magaalada gaalkacyo insha Allah taala hadda codkiina ay u shubtaan inaan dhamaystiro ballanqaadka inta ka dhiman iyo hadda inta ballanqaadi doono insha Allah qorshaha maanta 2026 waa soo shaacin doona asagana insha Allah taala xisaabtiina diyaar baan nahay waxaan mar kale ka codsanayaa in codkiina 25 bisha iyo bari midka online ka 9 bisha bari bilaabanaya 13 ku eg iyo maalinta 25 inta aan ugu kaalmaysan 25 waxaan ka codsanayaa in aan ugu kaalmaysan xisbiga GSB codkiina insha Allah taala iyo shimbirta calaamada ah iyo 15 ila idinka barina waxaan rabnaa koodkana nagu kaalmaysan oo nagu garab istaagtaan oo codkiina nagu welilisaan marka hore ilaahay waa mahad iska leh dhamaanteen noo suurtageliyay maanta inaan halkan si nabad ku joogno alxamdulillaah rabbil caalamiin marka labaad dhamaan saaxiibada baa saxaafadda iyo bulshooyinka qiimaha badan aad baa maasantiin in dhageysan doonto mana daawan doonto insha Allah inta kadib maantay waxaan halkan rabaa inaan uga hadlo insha Allah taala codsi aan u jeedinayo bulshada qiimaha badan ee reer gaalkacyo iyo warbixin yar oo kooban insha Allah taala inta kadib waxaan rabaa inaan wax yar ku hormaro warbixinta kooban sida wada ogtihiin bulshooyinka qiimaha badan ee reer gaalkacyo 2020 bishii November 12 waa mas'uuliyadda dawladda hoose hoggaankeeda la wareegay aniga iyo golihii deegaanka iyo dawladda hoose runtii markaas mas'uuliyadda ku guuleystay maanta oo ay tahay 8 bisha 7 2026 ilaahay baa kaga xamdinayna anagoo nabad ah xafiiska ka shaqaynayna in halkan warbixin maanta aan maarta ka soo jeediyo muddadii xafiiska aan joognay iyo imaashaheennii imaashahaygii aan tartamaya 2020 musharaxa ahaa bulshada reer gaalkacyood xil iska doon ma aan ahayn waxaa jiray ballanqaadyo bulshaduna ay markhaati ka tahay ee aan ku tartamayey qodobo 7 qodob ahaa oo farcooda leh laakiin 7 qodob ka koobnaa ee bulshada aan la wadaagay waagii musharax ahaa kulamadii waaweynaa ee bulshada aan u qabanayna xilligaasna dukumeenti aan runtii ugu qaybinayay aan kala kulmay kala hortooda aan ka ballanqaaday dukumeenti aan u qaybiyay muddada 6 sano ku dhow ee mas'uuliyadda aan joogay waxaan target gareynayay qorshayaashii markii hore aan musharax ahaa aan ballanqaaday ama aan ku haminayay ama talagalkay u ahaa inaan ka shaqeeyo insha Allah taala wixii ka dheeriyo emergency iyo ku imaanayana mas'uuliyad baad naga saarnay wax xalinaynay waxaan rabaa ilaahay fadligii 2020 November mas'uuliyadda maanta la wareegay howlka qolkan hadda aan maanta warbixinta ku duubayna xafiiska aan soo fariisanay reer gaalkacyo waxay markhaati ka ahaayeen xaaladdu siday ahayd iyo siday u akirnayd iyo duruufihii jiray Soomaaliya maanta si guud waxa laga dareemayo amniga ah oo khawaarijta la dagaalankeeda iyo amniga guud runtii la dareemayo ka horba anoo gaalkacyo talaabo ka qaan ayadoo halka la gaarin dawladuna isbedelin 2022 xilliga madaxweyne xasan sheekh mas'uuliyadda qabanaya ka hor waxaan talaabo adag ka qaadnay khawaarijtii oo reer gaalkacyood runtii u afduubnaayeen amni darrada iyo culayska magaaladan laga dareemayay labada dhanba Puntland iyo Galmudug anagoo isku duuban waxaa ilaahay fadligiis ku guulaysanay ayadoo la gaarin khawaarij la dagaalanka caamka dowladnimada loo sinaa in annaga kaliya aan dagaal iclaaminay dagaal la galnay bulshadii hormuud u noqonnay nafteena u biimaynay taasna aan ka dhaxalnay kalsooni iyo nabad iyo runtii inaan salmugiis bulshada ku fariisato xafiiskan marka mas'uuliyadda la wareegnay nooma suuro gali in 2 saac isku xigta xafiiska ka shaqeyn ama 1 saac xiriir inaan joogno alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa kaga xamdinaynaa oo u bareernay runtii waana la handaday waxaad ogtahay in qaraxii naloo dhigay hanjabaado si kasta la yeel waxaan aaminsanayn saacaddeena waxaan ku dhimanayn insha Allah taala
waxaan ku dhabar adagnay inaan bannaanka u soo istaagno la dagaalanka khawaarijta si buuxda ugu guulaysan ilaahay baa waxaan dinaynaa intay ka qayb qaadatay mas-uuliyaddaas iyo shaqadaas qayb ku lahayn intii dhimateen waxa la ilaahay u naxariisto intii ku dhaawacantay ilaahay caafiyo inta kalena ajir allah ka siiyo dhammaan intii ilaahay dartiis cadowgaas uga dulqaadayso ummadda intaa kadib maantay oo 2026 bishii 7 aan joogno ilaa iyo maalintaas mas-uuliyaddii bulshada reer Gaalkacyo ay noo dhiibatay aan ka shaqaynaynay naloo igmaday systemka dawliga aan maaragtay ka mid ahayn madaxweyne Axmed Cabdikaari Qorqor madaxda ka ahaa iyo dowladda hoosena waxay runtii u wada shaqaynayeen si dhow bulshada iyo dowladda hoosena waxay u wada shaqaynayeen si dhow labada maamul ee Puntland iyo Galmudug saaxiibaha annana waxay u wada shaqaynayeen si dhow arrintaas waxaan sidaan hore u sheegay dul taagnaa qorshayaashii aan aaminsanaa bulshada inay igala xisaabtamayaan beri ka maalin waajibna ay tahay in lagala xisaabtamo ayadaa taargetkaygu ahaa ka shaqaynayay dul taagnaa maantana waxaan u diyaarsanahay in bulshada reer Gaalkacyo igala xisaabtanto ballanqaadkaygii 7 qodob maxaa qabsoomay maxaa qabyo ah waxaan aaminsanahay maantay 7 qodob wax badan waan ku guulaysanay inay maanta boqolkiiba wax ka badan 75 aan ku guulaysanay inaan meesha xalino kuna guulaysanay inaan natiijadii saxda ahayd ka gaarno alxamdulillahi rabbil caalamiin 25 ka dhiman iyo inta la midkaana waxaan maanta u taaganahay qabyo ninkeeda dhammaystira insha Allah tacaala waxaan rabaa bulshada reer Gaalkacyo inaan u caddeeyo inaan mar kale u sharxanahay meeyarka magaalada Gaalkacyo insha Allah tacaala tartanka 2026 diyaarna oo ahay tartan silmi insha Allah tacaala ilaahay idankii ana rajaynayo bulshada reer Gaalkacyo ayagoo runtii markhaati nooga ah maamulkii dowladda hoose ee anaga hoggaanka ka ahaa ee halkan ka shaqaynayay ee xafiiskan joogay 6 sano dhow inaan u dhabar adagna caqabado ka soo jiray shaqadii bulshada aan dayacin xafiis waa xafiis 6 maalin bulshada u adeega sabti to khamiis wax tabari reebta maana wax kale aan hagran waxaan filayaa bulshada inay markhaati nooga tahay insha Allah tacaala waana hubaa bulshada reer Gaalkacyo mar kale waxaan rabaa inaan aad iyo aad idinkaga codsado codkiina shalay ee runtii asagoo doorasho dadban joogay maanta axsaab jooga inaa codkiina ugu biirisaan insha Allah tacaala igu kaalmaysaan iguna garab istaagtaan 6 sano shaqada aan soo qabtay oo runtii aniga iyo maamulkii dowladda hoose aan ka mid ka ahaa ee golaha deegaanka iyo meeyar ku-xigeenka xogayaashii iyo agaasimayaasha iyo dhammaan waxaa kala duwan aan u dhabar adeegin iyo bulshada gacan noo ahayd iyo dhammaan dowladda inaga sareyso runtii ayaguna systemka aan ka shaqaynayno hoggaanka runtii u ahaa waxaan maanta rabaa ka codsada bulshada reer Gaalkacyo inay garab istaagaan dhammaan saaxiibada sharxan ee ka mid ahaa 6 sano dadkii shaqada adag soo hayay aan hubo inay hayeen shaqo aad iyo aad u kulul si daacadnimo loo hayay runtii culayskeeda lahayd dhammaan inta han kale is soo taagteen in la garab siiyo insha Allah tacaala laguna abaal mariyo runtii bareeridii loo bareeray khatartii tirada badnaa iyo horumarinta isxilqaanka u xooga badnayd ee magaalada Gaalkacyo ka qabanay daliya dibadna uga qareenay reer Gaalkacyo horumarkooda wixii dhimanaa insha Allah tacaala waa qabyo ninkeeda dhammaystira maanta u taagana insha Allah tacaala hadda codkiina igu shubtaan inaan dhammaystiro ballanqaadka inta ka dhiman iyo hadda inta ballanqaadi doono insha Allah qorshaha maanta 2026 waa soo shaacin doona asagana insha Allah tacaala 7 qodob inta ka dhimanayn waxaan rabaa inaan runtii la igala xisaabtamo anuguna soo bandhigo insha Allah tacaala bulshooyinka qiimaha badan mar kale waxaan rabaa inaan codsado berito 9 bisha waxaa jira linkiyo lagu tartami doono insha Allah tacaala annaga waxaan ka tartamayaa xisbiga TSB ka Cabdiraxmaan ahaan waxaan ka sharxanahay xisbi xaakimka GSB waxaa jiri doona berito koodhan la soo diri doona insha Allah tacaala wixii ka diiwaan gashan xisbi xaakimka GSB oo bulshada u dhici doona waa linkiga koowaad lagu tartamayo intaan qof iyo cod iyo faylka la gaarin insha Allah 25 bisha waxaan codsanayaa bulshada qiimaha badan inaa koodharka igu kaalmaysaan tartanka online-ka ah ee berito bilaaban doona insha Allah tacaala 13 bishana soo xirmi doona insha Allah tacaala bulshooyinka qiimaha badan reer Gaalkacyo qof kaste reer Gaalkacyo muwaadin ah
iyo dhammaan inta area gaalkacyo xukunto deegaanada iyo tuulooyinka iyo dadka miyiga degan dhammaan waxaan aad iyo aad uga codsanayaa in codkooda igu taageeraan waxaan rabaa mar kale inaan caddeeyo 6 sano muddada ku dhow aan joogay hagar la'aan baa runtii kaga shaqeeyey mas-uuliyaddii naloo igmaday anigii maamulkii saaxiibada ila wadaagay mas-uuliyadda beled iyo baadiyana waa ka shaqaynay wax tabari reebta maahana wax kale aan la harin bulshada markhaati bay nooga tahay mar kale waxaan rabaa inaan ku celiyo 7 qodob waxaan diyaar u ahay isla xisaabtan horena bulshada waxaa ogtihiin xisaab inaan sanadle u qaban jirnay bulshada nagala xisaabtamaan shaqada aan hayno haddana diyaar baa u nahay maadaama maanta mar kale aan u sharxannahay inaan mas-uuliyaddii u tartano inay nagala xisaabtamaan ilaa iidankii ugu dambayn bulshooyinta qiimaha badan reer gaalkacyo Soomaalida waxay tahay sadar muqdaa waa su'aal madoone mas-uuliyaddii aan soo haynay muddadii 6 sano ahayd wixii aan qabanay annaga waa itusoo itaabsi iska sheegasho maaha geed kuma aadana wax qarsoon maaha wax indhaha laga leexin karo maaha bannaankay noo taallaa ilaa idinkii bulshaduna markhaati bay ka tahay xisaabtiina diyaar baa u nahay waxaan mar kale idinka codsanayaa inaa codkiina 25 bisha iyo berri midka online-ka oo 9 bisha berri bilaabanaya 13 ku eg iyo maalinta 25 inta waan nagu kaalmaysaan 25 waxaan ka codsanayaa inaan nagu kaalmaysaan xisbiga GSB codkiina insha Allah tacaala iyo shimbirta calaamadda ah iyo 15 ilaa idinkii berrina waxaan rabnaa koodkana nagu kaalmaysaan oo nagu garab istaagtaan oo codkiina nagu helisaan sida aan kugu helinay 6 sano mas-uuliyadda aan joognay aanan hameen idinka seexan maalina idinka seexan danteennii khaaska ahayn xagga aska dhino danta guud aan u go'doonnay runtii waxaa mas-uuliyadda maanta inaan ololahayga soo bilaabo ifaraysay mas-uuliyadda bulshada u hayo waxaad ogtihiin 25 la asteeyay doorashada dhacdo maantana bisha waa imisa waa 8 meeqa ka dhiman muddo kooban waa dareemi kartaan intaas waxaan ilaalinaynaa mas-uuliyaddii guud ahayno inaan dayacno intaan olole aadno iyo doorasho inaan inta aadno mas-uuliyadda meesha ka baxda waxaan ilaalinaynaa gaabkaas maanta ololehena runtii si rasmi u bilownay oo dhowr iyo 10 bir ay ka dhiman tahay doorashada insha Allah tacaala maanta xataa waxaan ku duubayaa shaqada dhexdeeda xafiiskiga anoo jooga oo bulshada u adeegaya baa codsiga waxaan ka soo dhex dirayaa xafiiskiga aad iyo aad baa markale u mahadsantihiin bulshooyinta qiimaha badan waxaan diyaar u ahay inaan fagaaraha imaado su'aal kasta bulshada uga jawaabo media soo fariisto su'aal kasta la soo weydiiyo meelaha publica bulshada inaan isugu yeerno aan soo istaagno su'aal kasta bulshada ay rabto inaan kaga jawaabno ama ballanqaadkii hore ha noqoto ama hadda qorshaha aan ku tartamayo ha noqoto inta diyaar baa lana billahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh gaalkacyo sidoo kale waxay xarumo ku leedahay magaalooyinka Cadaado Dhuusamareeb Qurceel Caabudwaaq iyo Garowe haddaba wixii faahfaahinta dheer waxaad kala xiriir kartaa telefoon nambarada kale ah Hormuud eber 659 ama eber 659 10 81 ama goolis eber 9 eber 7 51 eber 9 90